taliye ku-xigeenka gobolka Sanaag Cismaan Xaashi Daahir iyo koox ka socota telefishinka qaranka ayaa maanta ku soo booqday gurigiisa wiil dhalinyaro ah oo dhibanaha waxyeello ka soo gaadhay telefoon looga soo diray dibadda. arrintan iyo dhacdadan oo hay taariikhda markii ugu horeysay qof ay waxyeello ka soo gaadho telefoonno laga soo dirayo dibadda ayaa iyadoo ahayd sheekooyin muddooyinkan haystay social media kuwaasoo bogga facebookyada iyo bogga dadka ay ku kulmaan ee arrimaha bulshada la isugu gudbinaya halista iyo waxyeellada kana ay la xiriirsan tahay telefoon la sheegay in qof uu soo dirayo kaasi oo la tilmaamay in ay halis iyo waxyeello weyn uu xambaarsan yahay iyo sidoo kale inuu sido fayrisiyo dili kara qofka. arrintan iyo dhacdadan oo ahayd mid dadka lagahooda maqalka ku badnayd ayaa noqotay markii ugu horeysay la arko magaalada Ceel Afweyn qof dhibana ah oo waxyeelladan si toos ah ay xiriir ula yeelato. haddaba wiilka dhalinyarada oo isagu ka hadlayay waqtigii iyo sidii ay ugu timi arrintan la yaabka iyo naxdinta badan ayuu ku tilmaamay in xilli uu joogay miiga ay la soo diristay arrintan oo lambar aanu garanayn uu telefoonkiisa soo garaacay isla markaana xaalad kooma ah uu naftiisa gashay isagoo gariir iyo guux toona laga waayay dhammaan jirkiisa waxaana markaasi loola soo cararay magaalada Ceel Afweyn. habeenka ka horeeyay lambar soo garaacay lambarkii waa qabtay lambar fara badan baan hadda waxa yarnaa dadna lambarkii waxba ima gaarsan hadalkiisa aan garanay habeenkii dambeeyana Facebook iska baaranay waxaan labada gabdhood iyo soo diray madax dadna waa dhacay tisaas waxay gaaraan marka inta ashad jiftay shalay waa habeen hore marka sidee wax ku gaareen xagee wax ka gaareen iyo murqiyada soo xiran madaxaan iyo garbaha saxan iyo dhinacyada iyo miyaad qabatay telefoonka habeenkii hore والله هاش هذين كبر والله دوك يروح مقلاش هذا الكيس وان جرى معي هي هذا السيابه كما لا قراعي مش ساق سو قراعي ساق سو قراعي marka uu telefoonka aad qabatay waxaan dareemtay ma wax telefoonka kaaga yimi waxayo marqa ku bedelay habeenkii dambe aan baaray Facebook wasaafa waaya ila shalay waa jiftay tus gacmahaaga baqtiya hadda gacmo oo ku guriyay magacmada sidoo soo su'aashan weydiinaya lambarka ma eegtay lambarku ma eegtay inuu wadankeena yahay inuu wadanka kale dibadda yahay lambarka ma eegtay soo garaacay dani lambar fara badan baa ahaa lambaradan Soomaaliland ma ahayn caadiga ma ahayn horse lambar fara badan ma ka eegtay inuu lambarkii ku jiro in la hadda imika iyo ka baxay markii waa ka baxay naftaadu marna ma isbedeshay hadda saacada ila shalay caadi marka koomaad gashay lambaradan meelaha la marinayo fara badan aan la qaban inaan la qaban anigu wixii soo gaaray lambarkaas ma banaanay. taliyaha qaybta oo isagu ka hadlayay dhacdadan waxna ka weydiiyay xilligii iyo goobtii arrinkani ku yimi iyo waliba lambarka laga soo garaacay ayaa isaguna ka hadlay dhacdadan. waa arrin cajiib ah qofka deedibto isagay gaar ahaan ugu dhacday waxaan saleenahay qofku lambarna aanu garanaynin ama dalkeena gudihiisa ahayn oo aanu ama haduu dibadda yahay qof uu aqoon u lahayn inaanu qaban maadaama ay khatarta ku sugan aan arkayno imika ninka dhibanaha la gacmihiisa wada gariirayaan ilaa xalay ilaa habeen horena kooma ku jiray waa in la ogaadaa qofku lambarka soo wacaya haduu dibadda yahay qof uu aqoon u leeyahay. arrintan ayaa noqonaysa taariikhda markii ugu horeysay la arko wax ka yimaada dibadda amaba telefoon uu qof ka soo garaaco oo ay waxyeello ka soo gaadho. tani oo noqonaysa mid ku cusub taariikhda Somaliland amaba taariikhda dadka Soomaaliga ah ku hadla. waxaan digay ugu dareynaa haddii baa tahay qof warmaqabta ka oo aan ogeyn halista iyo aafada ku jirta isgaarsiintan casriga xilliyada socota amaba aad maqashay amaba dhagahaaga iyo daayahaaga oo aysan arag oo dhagahaaga aad ka maqashay in arrinkan telefoonka lambarkiisa nooca +233 ay jirto oo ay ku timiin dad badan dhimasho ay ka soo gaadhay qaarna ay waxyeello ka gaadhay. cabdiqani xasan faarax iyo ismaaciil akulle telefishinka qaranka magaalada Ceel Afweyn.